الحمد لله رب العالمين. الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إلهي ومعله سبحانه وتعالى. إلهي وكليه معله. waxaan shacabka reer Somaliland caawij calaysay in la wadaago dagaalkii maanta dhacay waxaan Ilaahay ka baryayaa intii ku dhaawacantayna inuu Ilaahay degdeg u bogsiiyo intii dhimatana inuu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala jannada ka waraabiyo inba waxa weeye aanu sheegayaa shacabka reer Somaliland maanta waxa loo baahan yahay ciidamadan la isbarbar taagaa loo baahan yahay dhacdooyinkan bariyahan socday waxaynu kaga gudbinaa midnimo waa inuu kala saarnaa calanka iyo ciidda iyo maamulka xun waa inuu kala saarnaa cawdalka Somaliland kuma socdo muuse iyo maamulkiisa gurcane Somaliland buu ku socdaa iyo shacbiga reer Somaliland waxaynu maanta iska codsanayaa mid dibad jooga iyo mid gudaha jooga in ciidanka Jamhuuriyadda Somaliland geesiyada ah in la isbarbar taaga waxaan ka codsanayaa jabhadda gacan libaaxna hoggaanka la saluugayna waa ka tashanayna waxayna midnimo ayaynu difaaca qaranka iyo midnimadeena iyo siyaasadeena iyo yoolkeena midnimo aynu ku dhamaysanayna waxaa la gaaray maanta maalintii aynu ka barbar dagaalamayseen ciidanka qaranka waxaan leeyahay shacbiga reer Somaliland waa inay qof kastaba u tuutaa xidha waa loo siman yahay ciidanka qaranka iyo shacbiguba difaaca qaranka waa loo siman yahay waa waajib ina saaran waxa weeye mustaqbalkii caruurteena waa ididiiladayaan haysanay waa tanagu ku hamiynay waxaan wax ku noqon karnaa midnimo quluubkeena waa in la mideeyo quluubteena hadday quluubtu kala jeesato Ilaahay bay noo sheegay subxaanahu wa ta'aala umar yimaado quwadda jabta waan la fashilmaa waa inuu taak ilaalinaa qarankeena iyo ummadeena shacbigeena wanaagsan ee dulqaadka badan leh ee goobta ah waa inaynu ka ilaalinaa mar haddii aynu wixii dawlad samaysay siin weynay ay wax kasta iyagu iska bixiyaan waa inaynu niyadooda u adkaynaa iyo mustaqbalkooda aynu tusnaa inaynu baraari doono insha allahu tacaala in laynoo soo haajiri doono inaynu ka haajiri doonin dalkeena insha allah doonaya waxaan ugu go'aabinayaa dadkii dibadda ka hadli jiray waa waqtigeenu mid noqoninay mid wixii gudaheena ahaa waynu hagaajinaynaa waaynu iska qabanaa qofka qalacan inagoo midaysan ayaynu gacan adag ku qaban doonaa insha allahu tacaala waa in maanta dadka shacbiga Somaliland waa in maanta niyadooda iyo himiladooda la xoojiyaa cadowga maanta waa loo midoobaa hal gamca la isqabsado waxaa leeyahay jeebka gacanta la geliyo dhaawaca waxaa la siiyo dadka laga dhintaa waxaa la siiyo agoomaha waa maalintii aynu midnimadeena iyo quwadeena iyo sharafteena aynu ilaalinayna weeye maanta taasaa maanta loo sameeyay waxaa maanta loo baahan waxa weeye maxaynu sheeyna dalkeena u daafacnaa inagu soo duulay seen u daafacnaa taasaa maanta inoo balana ana tuutaa waa soo xidhan insha Allah taala wa inoo caynka wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh nabad ku seexda insha Allah taala